sidii aad idaacadaheenna ku maqasheen golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika ayaa toddobaadkan soo dhoweeyey codsi ay u gudbisay dowladda soomaaliya oo ahaa in midowda afrika uu hogaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareegi doona howlgalka xilligan ee admis marka lasoo gebagabeeyo bisha disembar ee sanadkan. haddaba maxay yihiin markaasi howlgalladan iyo ciidamadan waxyaabaha ay ku saabsan yihiin ayaa markaasi waxay soo jiitamayeen ilaa in muddo ah, iyadoo dowladda soomaaliyana codsigeeda ay midowda afrika si weyn u soo dhoweeyeen. golaha amniga ee midowda afrika ayaa kadib soo dhoweynta codsiga muqdisho war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyo inay sii wadayaan taageerada dowladda federaalk ee dhismaha awoodda ciidanka. howlgalka ayaa bilaaban doona bisha januari ee sanadka soo socda waxaana ka qaybgalaya ciidamo caalami ah. axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee gobolka ayaa weydiiyey waxa howlgalkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo waajibaadka shaqo ee ciidamada ka qaybgalaya. tira ahaan marka la fiiriyo horta way ka yar yihiin tiradii horeeto oo African Union ama ATMIS ha noqoto oo ilaa 20 kun ahayd. ciidamadan marka waxay noqonayaan ciidamo oo garab sii doona ciidamada federaalka Soomaaliya. dhanka tababarka ha noqoto ama SSR-ka isku dhafka ciidamadoo kaleeto in laga shaqeeyo tababar ay siiyaan xarumaha dowladda oo u muhiimkaana in ay sii waardiyeeyaan ayarna si smoodi ah inta dowladda Soomaaliya iskaga filnaanaysa inay amniga dalka iyo xasiloonidiisa la wareegtana inay ka sii caawiyaan hal mar aysan dhicin dowladdii Soomaaliya oo aan u diyaarsanayn inay la wareegaan xarumihii si hadda u sheegnaba khatarahaasna laga baqayo al-shabaab weli in ay degdeg u baxaan. marka waxaa la rabaa si istimaadi oo socdo isku xiran howlgalku inuu baxo. marka awood ahaan iyo tira ahaan way ka yar yihiin. howlgalkoodana wuxuu noqonayaa caawinaad iyadoo la dhisayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inay gacan ka siiyaan dhanka tababarka ha noqoto, dhanka istiraatiijiyadda ha noqoto, iyo meelaha figureska ugu muhiimsan dowladda inay sii ilaaliyaan. howlgalkoodu saasuu sii noqon doonaa. arrinkan ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay horey u sheegtay inay amnigeeda kala wareegaysa admis dhammaadka sanadkan, iyadoo saldhigyo ciidan oo fariisan u ahaa ciidamada midowda afrika ay sanadkii lasoo dhaafay la wareegeen ciidamada Soomaaliya. kadib soo dhoweynta codsiga Soomaaliya, golaha midowda afrika ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta admis. haddaba maxay tahay tallaabada xigta iyo waxa xilligan Soomaaliya ay ugu soo beegtay codsiga ayaa weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka. tallaabada tan xigta ee mar hadda African Unionka codsigooda aqbaleen Soomaaliya, tallaabada xigta waa dhaqaale raadin iyo ciidihii wadamada ay ka imanayaan ciidamada iyo sida ay u iman doonaan. marka kabacdi ogolaanshahan hadda koowaad, tallaabada xigta kabacdi baa la ogaan karaa wixii tafaasiila iyo wixii ka iman karaa. waa gartay Cabdinuur, sidaan la soconno dowladda Soomaaliya ee sanadkii hore waxay sheegtay inay u diyaar garoobeen in amnigeeda ay kala wareegto AMISOM. marka maxaa keena ayaad isleedahay codsigan oo hadda ciidamo caalami ah ay ku doonayso inay u dirsato midowda afrika, oo weliba midowda afrika ay ka codsatay inay hogaamiyaan? Soomaaliya wadanku wadan weyn waaye, maadaama wadanku weyn yahay. dib u xoreynta iyo la dagaalanka shabaabna beryahan dambe socdeen. dhulka baaxadiisa iyo magaalooyinka la xoreeyo oo lagula dagaalamo shabaab sii hayntooda iyo in la ilaaliyo ama amnigeeda la sugo waxoogaa time bay qaadanaysaa ciidamada Soomaaliya, maadaama oy dagaaladan aysan sahlanayn fududayn. marka sidaa darteed waxay noqonaysaa baan u malaynayaa in ciidamada Soomaaliya support ahaan oo baritunkaar wixii la dhihi jiray sidii ay u baritunkaari lahaayeen in la helo ciidamadaas. howlgalkan ciidamada caalamiga ah ayaa noqon doona kii saddexaad ee Soomaaliya laga hirgeliyo tan iyo 2007 markaasuu soo bilowday ololaha AMISOM oo markii dambe loo bedelay ADMIS. haddaba muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya howlgalkan saddexaad? waa kan mar kale Axmed Kaboole oo su-aashaasi aan weydiiyey. waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya weli ay u baahan tahay caawinaad ay uga baahan tahay midowda Afrika inta ay kala wareegayaan xasiloonida dalka iyo amniga guud ahaan iyo xarumaha AMISOM ay ka baxayso, dowladdu isku filnaanayso in ay caawinaad u baahan yihiin oo welina ay jirto runtii khatar ka imaanaysa dhanka al-shabaab
waa sax oo baahidii jirtay 10kii sano lasoo dhaafay maanta ma jirto, laakiin waxaa muuqanaysa weli inaysan dowladda soomaaliya aysan ku filnayn inay xarumihii amisom ay ka baxday iyo atmis missionkaas ay ka baxeen in aysan si guud ula wareegi karinin. welina ay u baahan yihiin transition kunusti ayara oo u baxo inta ciidamada militariga soomaaliya guud ahaan ay dalka kala wareegayaan. marka baahi inay jirtay ka dhigan tahay weli. midowga afrikana qiimeyntooda waxay ku salaynayaan waxay tahay in aysan dadaaladii la gaaray iyo xarumihii al-shabaab laga qabsaday iyo dowladnimadii inaan dib loo noqonin oo howlgalkii 15 sano soo socday oo uusan khasaarin. sidaasaan waxaa is leeyahay wuxuu ka dhigan yahay in baahi ay weli dowladda soomaaliya qabto. soomaaliya oo tan iyo 2022 ololo xoogan oo ay kula dagaalamayso kooxda al-shabaab ka waday deegaanada galmudug iyo hirshabeelle, halkaasoo horumar ay ka samaysay ayaa rajaynaysaa inay howlgalkeeda ku sii baahiso gobollada kale.